waxa aan ku soo dhaweyn doonaa naa'ibul mudiir maamula ku-xigeenka madallada alquraaniga oo magaciisa la yiraahdo fadiilatu sheekh Xuseen Cali ha ku soo dhawaado falay tafadal mashkuuran mahjuura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى بمهدسن مضن إن مرولي بلغم هذيو مهد الله سبحانه وتعالى كذب وحيانا مهد بلاران اسكاله والدينته يوم ارتشرفك يو ضمان معلمينته يو مامولك مركزك العدالة وحان ينا الله المامي كرين او مهد بلارنا نعلن يا مهد الله سبحانه وتعالى كذب أرضيدي قيمها بدنايد oo horteena ku soo bandhigtay diinta qaybaheeda kala gedisan haday ahaan lahayd quraan la akhriyo iyo hadii ay ahaan lahayd siirada nabiga sallallahu rabbi wa salaamu alayhi iyo riwaayadii ugu dambeysay ee aad looga qoslisay aaday u mahadsan yihiin ardaydaas iyo macallimiintii juhdiga ku soo bixisay iyo waalidiintii daba taagneed inta kadib runtii aadaan ugu faraxsanahay barnaamijkan qiimaha badan oo quruxda badan oo sida sharafta leh loo soo agaasimay oo ay ka muuqdaan faraha waalidiinta iyo juhdiga macallimiinta runtii kelimadeeda waxaan rabaa inaan u qaybiyo dhowr qaybood qayb waalidiinta ku aadan iyo mid ardada iyo mid aan u dambaysiin doono oo macallimiinta waalidiinta wal iska leeyahay muhiimadda ugu weyn waxay noqdeen hooyooyinka inkastoo aabayaalna ay fadhiyaan maalin dhaweyd wadaada masaajidka istaagay oo wuxuu yiri waraggan jamaacada ku soo tukaday oo waaweyn caruurta ay dhaleen aaway buu yiri maxay uga soo tageen guryaha may keenaan masaajidka de ragina masaajidka bay imaanayaan caruurtina ma joogaan waa wareer buu yiri waxaan hadda ka soo wataa markii iskuulada la isugu yeeray hooyo iyo aababa waa loo tartama iskuulka waa la tagaa shalay waxaan joogay Nairobi Muslim Academy oo la xiraay wallahi hooyo iyo aabba waalid wax u maqnaa ma jirin goobaha madaarista quraanka tahfiidka caynkan oo kaleeta oo nuurka iyo khayrka iyo dambi dhaafka laga kulmayana waxaad moodaa in ay mar waliba garab taagan tahay hooyadii oo aabayaashii juhdigooda uu meesha daciif jiddan ku yahay hooyada ilaahay subxaanahu wa ta'ala Soomaaliyeed ha barakeeyo ajirka iyo miraha ay gura ay abuuranaysana way u baxsan doontaa ilaahay kama dayaco ummadan Soomaaliyeed markii ay inta burburtay dhibaatada iyo qaraxa iyo balaayada ay ku dhacday iyo qaxa waxa uu daba taagnaa oo juhdiga bixinay hooyooyinka Soomaaliyeed iyo macallimiinta iskaashaday ayaa u badnayd inkastoo kaalinta aabahana juhdigiisii uusan qarsoonayn marka hooyooyinka waxaan leeyahay ilaahay idan barakeeyo shicirkii yaraa ee Arays Ciise raxmatullaahi calayhi waad garanaysaan uu lahaa aabuhu haajiraa hawu meel ugu kacaa haduusan mowdku helin hortaaday taagantay hooyadu waa lama huraan runtii sharaf baad mudan tihiin ilaahayna haydan barakeeyo juhdigan iyo dadaalkan aad wadaana si laban laabo si aad mustaqbalka mira macaan u gurataan juhdigiina iyo awoodiina ha u badnaato in aad kitaabka ilaahay subxaanahu wa ta'ala aad ku garab istaagtaan oo aad maraakista quraanka iyo masaajidda iyo aad ardada ku xirtaan oo aad u xambaarisaan kitaabka Allah subxaanahu wa ta'ala miraha ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu idinku irsaaqay oo ilmaha markuu quraanka dhameeyo aadan dhihin quraanka waa dhameeyay de markaani maadigaadi iyo alaabtaada iyo howlaha kale iska raaco
sidoo Sheekh Ali Haydar uu sheegayay quraanka oo la dhameeyo qof walba juhdiga iyo hadafka uu leeyahay waxa ugu badan zamankan dambe inuu yiraahdo ardayga quraanka ha dhameeyo markuu quraanka dhameeyana faraha laga qaado kadibna uu meeshii quraankii ka baxo aad baana quraanka loo hilmaamay og yahay marka waxa la idinkaga baahan yahay ardayda markay quraanka dhameeyaan in aanan sida looga harin oo aad juhdigiisii laba laabtaan oo kutubtii sidoo u baran lahaa xifdigii sidoo u adkeyn lahaa sidii ma taqaanaa culimada loogu xiri lahaa shaqo weyn baa idin taala markayana laga seexanin ilaahayda markay hooyooyinka intaas naga baxaya ardada waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala haydan xifdiyo runtii wax qurux badan baad soo bandhigteen nuurka iyo wujuuhda iyo iftiinkeeda ka muuqdana ilaahay ha idin siyaadiyo quraankan iyo diinkan aad baranaysaan idinku idan anfacaya maalinta aakhira iyo adduunba idinku idan anfacaya runtii qofka markuu quraanka barto oo uu ku dhaqmo oo uu xifdigiisa iyo macnihiisa barto oo kutubta quraanka uu barto adduun iyo aakhiraba waxba ma waayayo waxaad arkaysaan arday quraanka bartay maadigana bartay waa dhulka ma dhaco jaamacaadka adduunka ugu waaweyn buu helaa markuu quraanka bartana wax reebi kara ma jirto maadiga oo dhan waxaan aragnay arday inta quraanka la baray la xifdisiiyay macnihiisa la baray ayagoo waaweyn inta iskuul la geeyay waxaan ahayn aan keenaynin ardada quraanka aan baranin oo iskuulka bas loo daayay lamar fiican ma keenaan iskuulkan loo ordayay adduunyadan iyo aakhiraba waxay ku jirtaa kitaabka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo la barto oo lagu dhaqmo marka waxa la rabaa kitaabka intii dhamaysayna tafsiirkii iyo xifdigii iyo ka warqabkii iyo akhrintiisii ha lagu sii dadaalo inta aanan wali quraanka dhamayninna sidii ay ku dhamayn lahaayeen oo ay macnihiisa ku baran lahaayeen oo ay dadka u sii bari lahaayeen ha ka fikireeno oo halkaasi ha lagu sii hayo waxaan leeyahay intaana ardadan oo gudbiya macallimiinta waxaan leeyahay safar dheer oo aad u dheer oo dhib badan yaa lagu jiraa quraankan dadka barayo culays fara badan dhibaatooyin fara badan bay la kulmaan dhibaatadaasi waxa tusaale noogu filan nabi ilaahi maxamed sallallahu alayhi wa sallam wax kasta la yiri culays kastuu la kulmay si kasta loo caayay waa la dagaalamay waa dhigiisa la daadiyay dhaawacyo fara badan baa loo geystay aflagaadooyin baa loo geystay intaana danka ma uusan galaynin oo hadafkiisa iyo kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala iyo kalimatu la ilaha illa Allah in uu maghrib iyo makhshib gaarsiyo hadafkiisa ahayd marka waxa la idinka rabaa zamankan iska adag oo ay umadu u jeesatay maadi oo cidii hadda kitaabka Ilaahay u soo jeeday ay dad yar yihiin oo aqliyad ay noqdeen oo gaala iyo balaayo iyo professor fulaan oo dhan ay u soo labisteen sidii kitaabka Ilaahay ay u baabin lahaayeen oo waqtigeedana waa adag yahay baa lagu jira oo dadka lagu barayaa diinta waxa la idinka rabaa in aad inta marada dhexda ku dhuuqsataan aad kitaabka Ilaahay sidii aad ugu soo banbaxdeen aad dadka u bartaan oo aanan quraanka kaliya macnihiisa quraanka lafdigiisa kaliya la barin oo ardada tafsiirka la baro siirada la baro tawxiidka aad loo baro zamankan dambe waxaad moodaa madaarista quraanka inuu ku yaraaday in la baro ardada tawxiidka waxaan anigu ogahay oo soo gaaray ayadoo inta tawxiidka ardada la xifdisiyo la baro tartamo ay ku galaan jawaa'is fara badan lagu siiyo waxaad moodaa madaaristi hadda gadaalkan dambe booski tawxiidka in anaashiida la geliyay oo tawxiidkii wax dadkii barayaba ay yaraadeen diintan asal waxa uu ah tawxiidka in la baro tawxiidka xooga la saaro tartamo loogu qabto jawaa'is lagu bixiyo marka macallimiin culays fara badan iyo hawlo badan baa noo yaalo in juhdigaas iyo culayskaas faraha badan sidii loogu dhabar adaygi lahaa lagu talagalo ardadana quraanka macnihiisana la baro macnaha القرآن كإن لبارو فرط حوج اللصارو
كتابك لبرة إصلاحيات كتاب كان لبرة إصلاحيات كيس لبرة بارك الله فيكم وجزاكم الله خير بان إذن كوكو مهدينينا مهدا الله سبحانه وتعالى runtii mira iyo waxaa muuqda nuur ilaahay subxaanahu wa ta'aalaana waxaan ka baryaynaa markaskan al-Adaala wuxuu ka mid yahay maraakiista waaweyn oo hoos yimaada madallada madaarista waana markas namuudaj oo ku dayasho mudan ilaahay ha barakeeya isaga iyo markaska ardada macallimiinta iyo waalidiinta dhamaantiin aad baan idinku faraxsanahay wabillahi tawfiiq wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam